soo dhawaada waan ka xumay raali noqda soo dhawaada raali noqda yaa walaalayaal waa iga go'ay raali noqda boqolkiiba boqol internetka xun maanta roob boo waay rabadaan cream walaalayaal rabadaan cream cabdalla soo dhawow waa ku salaamayaa iga raali noqda haddaa ila socoteen waa iga go'ay raali noqda walaalayaal waa iga go'ay raali noqda soo yara bata insha allah waan idiin gabagabaynayaa haddii ilaahay ah walaalahay qaaliyo waxaan rabaa oo kaliya inaan idin sheego waan ka xumahay waa iga go'ay ha la iga raali noqdo insha allah calaa ay xaal walaashay qisada yar oo ay nala soo wadaagtay waxay tiri waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed bisha Ramadaan fadligeeda inay is cafiyaan oo ay si qalbiyana oo niyad ah ay isu cafiyaan in ay gacmaha is qabsadaan oo dalkoodii iyo ciidoodii iyo calankoodii ay dhulka ka qaataan in aan shisheeye ka faa'iideysan ayaan codsanayaa bay warqadeeda walaashay ku soo qortay marka insha Allah bilmillahi kariim waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan qabiil waxba ma dhisay waxbuu kala geeyaa qabyaaladu wayna baabiisay 27 sano ayay naga cuntay dhulkeenna ayay burburisay dadkeenna ayay leysay ciideenni ayay cadow maxay tahay u soo dhaweysay ciideenni ayay cadow ku dartay inuu ay gashtaan schedule-kooda oo ay ka fakaraan badaheenni ayaad ogeydeen oo forsel lagu waday wax kasta waxa inoo keenay waa qabyaalada marka insha Allah bilmillahi kariim waxaan idin kula dardaamayaa walaalayaal Soomaaliyeed ina qabyaalada aad ka weynaataan oo aad ka ilowdaan oo aad qalbigiina ka nadiifisaan oo aad ogaataan midnimo ayaa wax lagu helaa gacmo wada jir ay wax ku gooyaan isku duubni ayaa meel lagu gaaraa qabyaaladu waxay dumisay ma ogiye wax ma hagaajiso waxay naga dumisay una waad ogtihiin waxay naga dumisay dalkeena quruxda badnaa ee adduunka dabiicigiisa meel kasta laga sheegay waxay naga dishay dadkeeni oo millions ah ayay dishay oo qoorta ka jirtay waxay dishay millions kale oo beerarka lagala baxay millions kale oo badaha ku dhamaaday qabyaalad waxay qabato iyo qolo ay guul gaarsiisay ma jirto waxaan kula dardaarmayaa ummadii Soomaaliyeed halaag wax walba oo idinku dhaca waxa weeyaan wanaaga ayaa laga raacaa oo waxa la taraagarayaa balse wixii dhacay seebaan waxa wanaaga ku raadinaa seebaan wanaag maanta ku helnaa seebaan isku duubni aan ku helnaa seebaan maxay tahay ula dagaalanaa wixiina baabi'iyay shalayto marka insha Allah bilmillahi kariim qabyaalada hal laga weynaado oo hal iska daayo oo walaalayaal qabyaaladii waxaad ku bedeshaan iyo xumaantii walaalka saaxiibka ka gali lahayd waxaad ku bedeshaan inay midnimo gasho niyadaada inay wadaninimo gasho niyadaada tan ugu quruxda badan ummadii diinta islaamka ku heshiiso walaalo ku noqda oo ilaahayna afna ka dhaxaysiiyay luqadna ka dhaxaysiiyay ciidna ka dhaxaysiiyay qabyaalad waxba ma aha qabyaalad waa tan kala turto 27 years maanta xataa qaar Soomaalidu ayna isu guursan karinin walaalayaal ilaahay ha laga baqo waxaan ku codsanayaa Soomaaliya meel kasto aad joogtaan ina qabyaalada la dagaalantaan dhinacina ina kala dagaalantaan guul daradii laga helay ee qof walba qofkii walaalkiisa oo xigay dilay ee qof walba Soomaali oo dhan way isla dhalatay hooyadii waay abtigii waay adeerkii waay ina adeerkii waay ina abtigii waay gabadha ina abtiga ay hooyo kala dhashay wiilka ina abtiga ay maxay tahay waxa dhalay maxay tahay eedada dhashay waxa dhalay qabiil kale kulligeen waxaan nahay Soomaaliya hal family oo ilaahay badiyay oo haddana isliqay marka insha Allah waxaan ilaahay ka baryaa
ummadda Soomaaliyeed ilaahay qalbadooda inuu isu soo celiyo qalbigoodana qabyaalada ka saaro qabyaaladu waa mid cadowgeena oo dhan ay ogaadeen meesha wiiga aan ka nahay ee ay noo isticmaaleen waa meesha fawaaxisho adduunka dhan nooga dhigtay ee baalka madowna gelisay marka waxaan idin leeyahay walaalayaal qabyaalada iska daaya oo ka weynaada oo waxaad ku bedeshaan wax wanaag ah oo ilaahayna ajarkaaga qoraayo idinkana aad maxay ta guul ku gaaraysaan waxaa guul ku gaaraysaan inaad ummadii Soomaaliyeed ee dhibta weyn qabsatay ee isbaabiisay ee iscuntay ee cawaanta noqotay inaad dib refreshment ugu samaysaan oo aad tirahdaan wixii dhacay fool xumay ahayd hadda let's move on wax wanaagsan aan samayno haddii aadna wax wanaagsan samaynin sida aad ku jirtaan ayaad ku dhamaanaysaan dalna ku weynaysaan dadna ku weynaysaan dalna waa weydeen dadna waa weydeen almost hadda tan waxaan ahay take over banal ku samaysan gaaray waan dhaweyn waa sii dhawaa wadankeena waa sii dhawaa in qorshe qaadato u dhawaa waxaan kala dardaarmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed wax garadka Soomaaliyeed in alla inta wax garanaysa ama aqli leh qabyaaladayna ka fogaataa qabyaalad walaal bay dishaa wiil bay dishaa qabyaalad wiil kuma dhasho qabyaalad wiil bay dishaa oo gabar bay dishaa oo waxayna dhigtay distator oo gabdhaheena meelahaas lagu wada baabaasaday oo gabdhihii Soomaaliyeed wada biyo dahabka u ahaa awal chance lagu helay la waayay adduunka qaxaas iyo dhibaatadaas iyo rafaadkaas iyo iscuunkaas wuxuu dhaliyay gabdhaheena meel kasta inay yaalaan oo meel kasta taagan yihiin war hooy Soomaaliyeed hala isdaba qabtaa aniga idin leeyahay walaalayaal waa bil Ramadaan ah iscafiya iska cafiya qabyaalada iska cafiya qalbadiina ka dhaqda because markaa dhimatid qabiil kuma raacayo reehebelow kuma raacayo kii laanka dheera kuma raacayo kii lugta dheera kuma raacayo 2 mitir lagu soo dhigayaa ciidna babba lagu suuna waa laga soo tagayaa wax kula galaya waxa kula galaya camalkaaga waxa kula galaya wanaaga aad geysato waxa kula galaya waxa wanaagsan oo umada u gudbiso waxa kula galaya wixii wanaagaha ee ilaahayna aad wanaag uga dalbatay ayaa kula galaya laakiin wax kale kuma camalkaaga kaliya ku raacaya hooyada kuma raacaysa aabaha kuma raacayo qabiil fulaan kuma raacayo wax ku raacayo ma jiraan 2 mitirkaas lagu ridayaa qabiilka aad sheegayso aad u dhimato dadkii u dhamayso adigu isu baabiiso wadankaaga u liqday kuma raacayo xataa hooyada kuma raacayso adduunka kuugu jecel waxa laga yaabaa wax qofka inuu ugu jecel adduunyada waa waaridka waa waliba waa hooyana in raaci mayso wallahi in raacinin 2 mitir lagu dhigayaa maracada asaas lagu duubay waxa adduunka aad qaadatay oo aad dhacday oo dhan hal ku raacay mala mar asaas lagu duubay waa lagaaga soo tagayaa ma fahanti adiga iyo camalkaaga ayaad markaas maxay tahay iswaraysanaya camal wanaagsan aan la imaano intiina maanta aqliga leh inta maskaxda leh la dagaalama qabyaalad waxay noqotay in wadankeena dhan lagu distrogareeyo dawladihii xataa dawladii wadanka laga dhisay in qabyaalad lagu dhiso meesha adduunka education iyo maxay qofkaanu muxuu haystaa which document yaab qofkaanu muxuu bartay la isku waxayn lahaa waxay noqotay xataa qabyaalad in maxay tahay election keeni qabyaalad u yahay oo maxay tahay kuraasini qabyaalad ay tahay wax walba qabyaalad war ilaahi hal laga baqo Soomaaliyeed إلهي سبحانه وتعالى هلا بقو ولا العلن كواكنا علن كين وإياه العلن كاسنا ماشي ويا لا وعلن كيجي أسقنا مركا إن شاء الله بالله كريم ولا ليه روحنا كل دردار مية أمة الصومالية بيركز أجوبتان أنت أنا شير ده هذه إلهي راه يقرر لنقطة مربع علة فرصة ما إيها شيء أو نحنا كسوق شيء لكن وحنا نكون ويانين يا صومالية مقدجي أنجلني أو أدون كنا نوو أركان أو نوو قرينا عواننا هاي أو أدون كميل بعيبتين نرجعي أو أدون كميلنا لك أمانة أي سنجرنين أو أنا هاي وحنا سوق هلقى توبت كانوا بشر رمضان سي الله كعرس له قفل بقلب جيسها أفرو dadkii sanaha u cafiyo hana ka shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sida dadkeenu ay isugu imaan karaan because kulligeen qabiilka ilaahay waa soo dajiyay laakiin abuse ilaahay kuma dhihinin dadkaaga laahna ilaahay kuma dhihinin isqalqalana ilaahay kuma dhihinin wadankaaga destroygrana ilaahay kuma dhihinin wadankaaga dhan baabiina ilaahay kuma dhihinin inta walaalayaal aan ka foojignaana insha Allah bilmillahi kariim waxaan kaga tagayaa walaashin midnimo jeejee waaye assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan idin leeyahay dhamaantiin Ramadaan kariim ayaan meel walba idin ka leeyahay insha Allah bilmillahi kariim